السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي كسر دواد عشر كامل عشر رد إني تحنايا هالكن إنه قصو إنجري ما أنت وحن قادنا إن عشر إرياء عصب English new words af Somali إرياء عصب halkan waxaa inoogu qoran anga ereyga anger ugu dhawaaqi maysid anga ayaad ugu dhawaaqi waxaana qarinaysaa ra'da dambe ama aarta dambe xanaaq ayay noqonaysaa qof xanaaqay waa magaca xanaaq allegation waxaan dhahaynaa eedayn qof looga shakiyay dembi ama fal inuu sameeyey kadibna la eedeeyey eedayn ayaan dhahaynaa advertise waa xayaysiin tusaale kambaniga kolka uu badeeco keeno wuxuu isku dayaa inuu ogeysiiyo dadka sida wuxuuna la wadaagaa idaacadaha hadda social media-ga aad loogu isticmaalaa ama mareegaha bulshada advertise ayaan dhahaynaa xayaysiin ayaan dhahaynaa adalati waxa weeye qaangaadh ama qaangaar tusaale qofka dadka muslimka ah 15 sano hadduu qofku gaadho waa qaangaadh able waxaan dhahaynaa awoodid waa qof waxaad awoodo ama shay aad awoodo ood bixin karto ama aad samayn karto ashame ereygan shame ayaad ugu dhawaaqaysaa ashame ceebayn ayay noqonaysaa ceeb it is ashame waa ceeb ereygaas waxa inaad samayso oo kale accept waxay noqonaysaa aqbalaad shay lagu siiyey ama lagu sheegay ood aqbashay ayay noqonaysaa alone keligiis tusaale waxaan keligiis u dhahnay waa hal shay ama hal qof ereyga keli ama single waa la dhaha alone waa la dhaha laakiin alone waxa weeye hal wax hal kursi hal nin inta badanna waxaa loo isticmaalaa nolosha waxaad leedahay he is alone asaga waa keligii walaal male she is alone waa keligeed yaa kula socday macnaha kolkaad waxaan samaynaysay am alone yaa kula socdaa tiri qof intuu ka hor yimaado am alone waa keligay alone maxaan dhahnay keligiis amays la yaabid waxaad la fajacday ama kaa yaabi oo kale yaab waa yaab oo kale markaad leedahay abiil waa racfaan waa tusaale waa xukun maxkamadi riday oo qofkii uu ku qanci waay racfaan inta badan maxkamadahan ka maqalayadana apparent waa wax u muuqda ama aan la qarin karin shay muuqda ama aan la qarin karin maxaan dhahaynaa apparent as ereygan sida tusaale waxaan soo qaadanaynaa sida hebel oo kale asaydu sidaan sameeyoo kale ama siduu sameeyoo kale about ku saabsan xog baad rabtay inaad qof ka hesho markaasaani wax xogtaa ku saabsan waxaad ka heli kartaa hebel about ku saabsanaansho assume qaadashadii hooyo qaado wax gacanta lagaaga fidiyey kelimaatan waxaa inta badan loo isticmaalaa tusaale waxaan ku dhahay u qaado inuu hebel yahay waxaas ama qof baa wax kuu sheegtay u qaado aan dhahay ama tusaale ahaan u qaado inaad tahayba wixii tusaale waxaan ku dhahay tusaale u qaadaba inaad tahay macallin seed ardada wax u bari lahayd saasaan iyadan uga tagnay ashua hubsiinyo maamaa waxaa jirta la yidhaaho hubsiino hal baa la siisaa ama ka fiirso intaada falin oo kale ah asiyum allaat waa feejignaan tusaale meel aad khatar ka dareemayso kolkaad soo gasho ama aad ka cabsanayso taxadar inaad muujiso ama feejignaan sare aad muujisaay wax meesha ku jirta analyze taxliilin ama falanqayn ereygan analyze wuxuu noqonayaa taxliilin assess waxa weeye qiimee ama qiimayn saad u qiimaynayso oo kale qiimee haddaan ku dhaho qofka hebela shaqadiisa soo qiimee ama qiimee saasaan dhahaynaa astonish waa la yaabid yaaban waa magacii yaab la yaaban ruux wax la yaaban oo kaleeto tusaalean hal mar ku celino anga waxaan dhahnay waa xanaaq allegation waxaan dhahnay eedayn advertise waxaan dhahnay waa xayaysiis adalati qaangaan able awoodo ama awoodid waxaad awoodo ashame waxaan dhahnay ceeb accepti aqbalaad alone keli amays la yaab ama yaab maxaan ku idhahdaayay abiil racfaan apparent u muuqda wax u muuqda sida u muuqday kula tahay as sida about ku saabsan ashua hubsasho
hadda xaqiijin waan dhahnaa hubsasho inagu laftirkeenna luuqad walba intaad af soomaaliga ka taqaano baad ka baran kartaa ashua waxaan dhahnay hubsasho inaad wixii hubs allaat waa taxadar feejignaan hadda taxadar iyo feejignaan waa isku midun laakiin waa laba eroo midba si u qormaayeen analyze waxaan dhahnay taxliilin ama falanqayn assess qiimeyn ama qiimee astonish yaab tusaale hadda haddaan soo qaato laba eray oo astonish iyo amaze ayaa meesha inoogu qoran yaab waa magacii waa wax magaca la yaab astonishna waxa weeye ficilku qofkii uu ku dhacay shucuurta uu muujinayo saas ayuu noqon. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas ayaan ku